deegaanka Wadi Mukhandas waa mandaqad la yaab leh waxaana ahayd tog ama wabi qalalay oo bari ahaan jiray meel aan waxba ka duwanayn dhulalka kaymaha ee ugaadhu ku badan tahay waa dhul muuqaal ahaan ka sheekeynaya noloshii iyo deegaankii ka jiri jiray dhulkani kumanaan sannadood ka hor deegaankan waa mid bari ahaan jiray waadi ama wabi ku hodan ah biyaha hase haatee qalalay Wadi Mukhandas waa taariikh fac weyn oo aadamuhu leeyahay khabiir u dhashay waddankaasi Talyaaniga kuna xeel dheer archaeology-ga laguna magacaabo Fabrizio More waxaanu ninkaasi helay meelo badan oo buura ama dhagaxaano ay ku xadhan yihiin farshaxanna asaar qadiimi ah ku duugan tahay sida ka muuqata sawirada ku xadhan dhagaxaantani waa kuwa tilmaamaya inuu dhulkani aanu ahaan jirin mid qalalan oo omasa sida uu maanta yahay oo kale kumanaan sannadood ka hor deegaankani waxa uu ahaan jiray sida dhulka safaaraha oo kale runtii waa yaab in dhulkan uu bari ahaan jiray meel ku hodan ah webiyo ugaar fara badanina ay ku nooshahay dhulkani weli waa mid aan si cad loo ogeyn xaaladiisa iyo taariikhdiisa sababtuna waxa weeye ciidda tuuran oo sida buuraha u agtaal taasoo dhalarogtay amaba qarisay waxyaalo badan oo ilaa haatan aan la ogeyn saxaruhu waxa uu ku yaalaa dhinaca waqooyi ee qaaradda Afrika saxarahani waa kan ugu weyn dhulka lama deegaanka ee dunida oo dhan waxaana lagu qiyaasaa bedka dhulkaasi saxaraha uu ku fadhiyo qiyaas dhan 9 milyan oo kiiloomitir oo square ah saxaruhu waxa uu ku fidsan yahay dhul aad u weyn oo u dhaxeeya minbadda cas ilaa dhinaca galbeed ee qaaradda Afrika ee ku teedsan dhinaca xeebta ee badweynta Atlantiga dhulkan aad arkayso waa meel taariikh duug ah ee ku daboolan tahay saxaruhu waa meel ay adag tahay in lagu noolaado xilliyada kulaylaha waxa uu heerkulku gaadhaa ilaa 55 digrii waa dhul roobku ku yar yahay waa qarfa adag oo oomana ah kasi daran xilliyada habeenkii waxa uu saxaruhu leeyahay qabow daran oo aan loo adkeysan karaynin waxaanu gaadhaa wax ka hooseeya 10 digrii dadka badankoodu waxay moodaan in dhulka saxaruhu ka kooban yahay ciid jilicsan oo isdul fuushay arrinkaasi ma aha mid dhab ah saxaruhu waxa uu leeyahay dhagxaan iyo buuro kala duwan dhagxaanta qaarkood ayaa ah kuwa asal ahaan ku yimid fulkaano buuraha saxaraha ku yaala ayaa ah kuwa jooga badda ka sareeya ilaa 3000 oo mitir saxaruhu waa gobolka ugu kulul dhulkan aynu ku noolnahay kasokow kulka iyo qalafsanaanta ka jirta gobolkaasi saxaraha haddana 3000 oo sano ka hor waxaa ka jiray xarakaad ganacsi 3 qarni kadib waxaa sare u sii kacay hanaanka ganacsi kaas oo ay door weyn ka qaateen horumarkiisa Roomaankii waagaasi awood lahaa waxaana hawshaasi culus hirgeliyay gaadiidka loo yaqaan doontii saxaraha oo si la yaab leh gaadiid ahaan iskaga dhex goosha saxaraha geel waa xayawaan adkaysi u leh inuu muddo dheer biyo la'aan ku noolaan karo haddii aanu geelu jirin may suurta gasheen in lagu noolaado dhulkaasi dhulka saxaraha ee Liibiya waa meel ay dabooshay ciid bataax ahi taasi oo ka timid dabeecadaha dhulka deegaanka Bahiratul Mandara waa meel ku taala saxaraha Liibiya waana mandaqad ay ku nool yihiin dadka loo yaqaan Tawaariqu deegaanku waa mid ku dhex yaala saxaraha adag ee Liibiya waana dhul 3 geesood oo ay xudun u ah dadka ka soo jeeda beelaha Tawaariqu ee deegaankaasi deegaankani waxa uu leeyahay meelo biyo qabatin ah kaasoo ka dhigaya mandaqada ay ku kulmaan dhammaan beelaha Tawaariqa ee ku nool arladaasi mandaqadaha u dhaxeeya deegaankani waxa lagu tilmaamay meelo ay goglan tahay badweyn ciidahi ciidda saxaruhu waxa dhinacyada kaga yaala dhul caws ama cagaar yar leh runtii waa arin mucjiso leh biyana goglan yihiin dhul sidan oo kale oo mana ah lama deegaana ah harooyinka ku teedsan hadaba dhulka Mandara ma wada laha biyo balse qaarkood ayaa guray waxaana jirta sheeko ay dadka ku nool dhulkan ay ka sheekeeyaan oo ah in ay harooyinkan yaryar ay bari ahaan jireen webiyaal waaweyn oo dhulkaasi dhex mushaaxi jiray balse dhowr kun oo sano ka hor guray kadib markii dhulkani uu isku bedelay mid xaaluf ah oo nabaad guuray kadibna ciidda raaxada daran ee saxaruhu ay liqday biyihii ka soo farcami jiray webigaasi marka laga yimaado sheekada run ahaantii dhulka harooyinka Mandara waa meel ku habboon dhinaca dalxiiska sababtuna waxa weeye waxay u eekaanayaan meel yar oo janno ah
oo hareeraha ay ka xigaan saxaro kulul oo naxariis daran. saxaruhu waa meel qalabsan oo adag, qofka ku koraana waxaa laga sheegaa inuu yahay qof dadka kale ka dabeecad iyo nolol qalabsan, waayo deegaanka aad ku soo kortaa waxa uu qayb ku yeeshaa qaab nololeedkaaga. haatan waxaynu u boqoolaynaa dhinaca magaalada caanka ee ku taala saxaraha dalkaasi ee Sabha. Sabha waa magaalo uu u nasasho tagi jiray hogaamiyihii hore ee dalkaasi Liibiya Colonel Gaddafi, kaasoo xukunka dalkiisa afgambi ku qabsaday sanadii 1969 kadib markii uu inqilaabay boqorkii xukumi jiray Liibiya ee King Idris. Sabha waxay noqotay xilligii Gaddafi meel si weyn ugu turjumaysa himilada kacaanka Gaddafi ee uu la baxay Green Revolution. waxaana magaaladaasi laga dhigay meel loo dalxiis tago, waxaana laga sameeyay aqal iyo filooyin iyo kuwa kale oo lagu nasto. sidoo kale goobaha lagu xanaaneeyo ugaadha ayaa laga sameeyay. Sabha waxa ay ka mid tahay magaalooyinka faca weyn ee Liibiya. runtii waa meel cagaaran oo haddana saxaraha ku dhex taala. haatan waxaynu u gudbaynaa magaalada weyn ee caanka ee ku taala dhinaca bari ee waddanka Liibiya ee Benghazi. magaaladani waa talabaad ee ugu weyn magaalooyinka Liibiya, waxayna ku taalaa dhinaca xeebta badda cad ee dhexe, waxaana quruumihii hore ugu yeeri jireen magaca Jiliyaanka. Benghazi waa magaalo tagtay oo si weyn ugu dhisantay dakhliga ka soo baxa khayraadka batroolka ee Liibiya ay leedahay. waa magaalo Greegii hore ay u bixiyeen magaaladii shanta libaax, waxaana ilaa maanta muuqda raadkaasi. tan iyo markii ay Liibiya ay xorowday dalkaasina laga helay batroolka, nolosha iyo horumarka magaaladaasi waa uu kordhay. dadka ku nool Benghazi waxaa lagu tilmaamaa kuwo dhiig kulul oo dagaalayahana ah, waana halkii ay ka bilaabatay duufaantii sahatay nidaamkii dalkaasi caynaanka u soo hayay muddo ka badan 40 sannadood. Benghazi waa hooyadii kacdoonka ka dhanka ahaa Muammar al-Gaddafi. Benghazi waxay sumad u ahayd dagaalkii lagu jabiyay xoogagii daacadda u ahaa Colonel Gaddafi. haddii aynu ka gudubno magaalada taariikhda weyn leh ee Benghazi, waxaynu u boqoolaynaa dhinaca deegaanka Bartolomis. waa magaalo ku taala dhinaca bari ee Liibiya oo waayo ahaan jirtay mid ka mid ah magaalooyinka dunida ugu shidan. waa magaalo markaad eegto waxa ka sii taagan dhismayaasheeda aad markiiba ay kuu soo baxayso inay ahayd mid ka turjumaysa xadaarad fog. waxay ahaan jirtay meel ay ka talin jireen qolyihii Roomaanka la odhan jiray ee beri dunida ugu xooga badnaa. magaaladan waxaa burburiyay oo dhulka la simay dhulgariir xoog weyn oo arladaasi ku habsaday. hadhaaga muuqda ee ka hadhay haddaba dhismayaashii magaaladan beri ay lahaan jirtay ayaa kuwa la yaab leh, isla markaasina ku cajab gelinaya, gaar ahaan qarada iyo awoodda ay leeyihiin dhagxaanta lagu sameeyey iyo qaabka iyo farsamada bilicda leh ee loo adeegsaday. waagii hore may jirin aaladaha maanta la adeegsado sida wiishashka, waxyaalaha culus qaada iyo cagafyo. sidaasi daraaddeed bal isweydii habka iyo awoodda lagu sameeyey dhagxaantan culayskaasi leh. waa magaalo ama dhul soo maray marxalado kala duwan iyo quwado kala dambeeyey, kuwaasoo mid waliba uu kaga tegay raadad ilaa maanta sii muuqda. marka aynu gaadhno bariga fog ee dhulweynaha Liibiya, waxaa ku yaala dhismaha caanka ee loo yaqaano qasriga Liibiya. waa meel ku taala buuraley, waana dhismaha qalcada kaasi oo la dhisay ka hor ahdigii Basantiyiinta. deegaankani waagii hore ee qadiimiga ahayd mu ahayn mid ahmiyad sidaasi u weyn leh, balse xilliyadii uu dalkaasi ka talin jireen xukunkii Roomaanku ayuu noqday meel muhiimad gaar ah leh. deegaankani waxa uu leeyahay museum ilaa 50 farshaxan oo Roomaanka ay ku kaydsan yihiin,
farshaxanka qadiimiga ah waxaa la helay sanadkii 1907 kadib markii baaritaan qodniin ah lagu sameeyay halkaasi waxaana farshaxankani laga helay dhisme kiniisad yar oo xagga bari ku taala waxaana asal ahaan farshaxankani ama muuqaalka sawirana ay ku yaalaan sagxadda dhismahaasi yar ee kiniisadaasi lahayd dhulka u dhow magaalada caanka ee Albayda waxay jooga badda ka sarreysaa qiyaas dhan 640 mitir waana deegaan ka tirsan mandaqada Jabalu al-Akhtar magaalada Albayda waa magaalo leh dhismayaal midabkoodu yahay cadaan Albayda waa magaalo bilic leh sanadii haddaba 1964 waagii uu dalkaasi ka talin jiray King Idris Sansuni magaaladan Albayda waxay ahayd xarunta maamul ee Liibiya waa magaalo qaab casri ah u dhisan waxaanay caadi ahaan u leedahay dhismayaal midabkoodu cadaan yahay sanadii 1943 ayaa Maxamed al-Ali Sanusi oo ahaa asaasi Ikhwaanul Muslimiin ee dalkani ayaa markii dambe loogu magac daray waxaanu ninkaasi la kulmay cadaadis xoog leh waxaana fikirkiisa islaamiga uu ku baahay badi dhulka saaxil loo yaqaano magaalada Albayda waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee dhulweynaha Liibiya marka dhowr kiiloomitir laga baxo magaaladani waxaa ku taala magaalada qadiimiga ah ee Sayrini taasi oo loo yaqaan Atlantiska Afrika waa magaalo ka turjumaysa waqti aad u fog iyo xadaarad cirkaasi maraysay magaaladan oo ku taala bariga xeebta Liibiya waa meel la yaab leh waxaana aad la yaabaysa xadaaradaha gamuuray ee dhulkani soo maray dhismayaasha magaaladani waa kuwa laga yagleelay dhul buure leeha waxaana la fajacaysa sida buurahaasi looga sameeyay aqalada kala duwan ee aad la ama kaagayso waa duni marba qolo ama xadaarada ay calanka u sidato waa muuqaal ku tusaya in arladan ay xudun ahayd maamulo kala duwan oo mid waliba uu lahaa ilbaxnimo iyo awood u gaara waraad muujinaya awoodihii kala dambeeyay ee quwadahani ee beri ka tarin jiray waqooyiga qaaradda Afrika marka la gudbo qiyaas ahaan dhan ilaa 20 kiiloomitir dhinaca badda waxa ku yaala deegaanka Apollonia waana meel ay ku taalo deked dabiici ah waa dhul soo maray xukuno kala dambeeyay sidii kii Byzantine Romanka iyo Cusmaaniyiinta iyo kii u dambeeyay ee Talyaaniga guud ahaan dhulka Liibiya waxa ku yaala meelo badan oo ay ku yaaleen magaalooyin qadiimi ah oo mid waliba ka sheekaynayso beri waxa uu dhulkani ahaan jiray waa deegaano muujinaya awoodii ay arladani ku lahaayeen mararka qaarkood waxaabad moodaysaa inaad joogto magaalooyinka qadiimiga ee ku yaala dhulka Greega Liibiya waa mid ka mid ah dalalka Afrika ku yaala ay ku kaydsan yihiin magaalooyin dhulka hoos maray oo ciid u liqday badi kuwan aynu soo aragnay waa kuwa la soo faqay oo dib loo habeeyay hase haatee waxaan war loo haynin tirada magaalooyinka kale ee ciidda saxaruhu dahaadhay magaalada qadiimiga ah ee Leptis Magna waxaa lagu tilmaamaa tan saddexaad ee ugu weyn magaalooyinka guunka ee ku yaala xeebaha badda Mediterranean-ka ee xeebaha Liibiya waa magaalo aad la yaabayso sida ay u ahaan jirtay caasimo tagtay ka mid ahayd kuwa dunida ugu xadaarada badan waa meel ay ku duugan yihiin ilbaxnimo laga sheekayn karaynin guud ahaan dhulka xeebaha ee waddanka Liibiya waxaa ka muuqata inuu ahaa deegaan ay si weyn ugu noolaayeen dadyow kala duwan oo dhulkaasi qolowa mar calankeedu u taagnaa qaabka dhismayaasha raadadkoodu sii muuqda ayaa kuwa ka turjumaya boqolaal sano ama qarniyo ka hor waxa uu dhulkani ahaan jiray markaad eegto haraaga ka sii muuqda magaalooyinkaasi waxaa kuu soo baxaya dadka waagaasi ku noolaa dhulkani inay ahaayeen kuwa si weyn uga horeeyay dhinaca farshaxanimada dhismayaasha iyo farsamadoodaba xukuno kala duwan oo ugu dambeeyay Romankii ayaa dhulkani u ahaa fadhiisimo iyo magaalooyin ay si weyn u camirteen badi waxa wax laga saaraa in magaalooyinkana ay
ku burbureen dhibaatooyin kala duwan oo la xidhiidha dhulgariiro ka dhacay arladaasi iyo colaado iyo dagaallo ay xukumayaashii soo maray dalkani ee kala duwanaa kala kulmeen qabaa'ilkii dhulkani deganaa. awoodda iyo boqoradii xoogga weyne ee Roomanku waxaa jebiyey oo dhulkana ka saaray xoogagii islaamka ee qabsaday dhulka waqooyiga qaaradda Afrika qarnigii 7 ee taariikhda milaadiga. islaamku waxa uu dunida keenay isbedel weyn kadib markii uu digada ka dhigay quwadihii dunida ka jiray waagaasi oo kala ahaa imbaradoriyadii Roomanka iyo Furus oo ahayd Iiraanta maanta. kusoo wado duubo dhulka Liibiya waxa uu ka mid yahay deegaanada ay ku aasan tahay xadaarad aan qiyaas lahayn, waxaana jira magaalooyin fac weyn oo sheekadoodu sii jirto balse aan la ogeyn halka ay ku yaalaan kadib markay ciidda saxaruhu liqday hadhaagii dhismayaashoodii.